wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile ayaa kormeer ku gaalabixiyay qaar ka mid ah deegaanada bariga gobolka Sanaaga waxaana wasiirka iyo wafdidiisu ay ku horeeyeen deegaanka Damalaxagare ee bariga magaalada Ceyrgaabo halkaas oo ay wasiirka iyo wafdidiisa ay ku soo dhaweeyeen qaar ka mid ah waxgaradka haweenka wadayaasha iyo haldoorka deegaanka Damalaxagare waxaana kelmadii soo dhaweynta ee halkaasi ka jeediyeen ka mid ahaa منطقة دقمة دملاحة هذا نهاي ونسود ويننا وسير سود ومنطقة هذه وقرقة جاذو دلتي ما أنت مالنتي حكتي أنا وحما غرسنا حبط بانوجت ما أنت وسير بانوجي يمون سودوي. سود ويننا مركوبات يمر لبعض با منطقة هذه كسود وسير كسود ونكسرها بين هذه وفتيادا. iyo waftiga uu wato oo nooga yimid Somaliland aad baan u soo dhaweynaa markoowaad iyo mar labaad aad baan u soo dhaweynaa wasiirka iyo safarka la socdaba waxaan ugu soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan soo dhawaasho wanaagsan wasiirka mudane Mustafa Maxamuud Cali Bile gurigiisii yimi mustaqbalka ku soo dhawo wasiir waa ka ajiibnay inaan soo dhaweyno murwo iyo mudane wala hogaanaya أنا ورجينا هو سفر كيسين الله يوفقه هوليس إلهي صوريو محمود علي وكسر ويننا مفرمان كسر ويننا مفرمان كسر ويننا مصطفى وكودعي دبك هجيرو كرسيغا كعوين نكون عبعد حسار علمه كما كان عشق فيه على البانكو qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ka soo jeeda wasiirka socdaalkiisa ku wehelinayay iyo sidoo kale xogayaha dawladda hoose degmada Ceyrgaabo ayaa geestooda halkaasi kala hadlay dadweynihii soo dhaweeyay ee Damalaxagare waxa weeye waa soo dhaweynta wasiirka cadaaladda Mustafa Maxamuud Cali Bile marka waxaan leenahay Mustafa soo dhawow magaaladaadi weeye gurigaagu weeye madaqadaadi weeye Damalaxagare degmay u qalantaa maanta waxa weeye laakiin tuulo weeye waxaan codsanaynaa in degmo laga dhigo aad ay u mahadsantiin Damalaxagare soo dhaweynta qiimaha leh ee sharafta leh ee karaamada leh ka muuqata aad baad ugu mahadsantiin wafti ballaaran baan nahay inuu hogaaminayo wasiirka cadaaladda Jamhuuriyadda Somaliland marka aad ay aad mahadsantiin waftigu runtii uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda cadaaladda Mustafa Maxamuud Cali Bile waxa uu halkan u yimi inuu ogaado xaaladihiina iyo noloshiina iyo baahiyihiina iyo waxyaabaha ka jira degmadan ama tuulada Damalaxagare hadda waxa la yiri waa degmo waxaanu rajaynaynaa inay noqoto Damalaxagare degmo oo wasiirkuna aanu fariinta waa faraynaa mar labaad iyo mar saddexaad waanu idin mahadcelinaa soo dhaweyntiina wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ujeedada socdaalkoodu oo daaranaa u kurgalka xaaladda dadka deegaanadaasi sidaad ogtihiin ilaa Hargeysaanu ka nimi safarkayga ujeedkiisu waxa uu ahaa inaanu u kurgalno dadkan iyo dalkan iyo baahiyahooda qodobka labaadna wuxuu ahaa inaanu dadkan la tashano waxa ay doonayaan waxa ay tabanayaan aanu la hadalno annagoo wax isku ogna aanu kala tagno oday xasan oo odayaasha kamida oo halka ka hadlayay wuxuu yiri Somaliland maanta maalintii loo xigtay xabad bay nagu riday oo halkan nagaga tagtay haddana waa soo dhaweynaynaa horta marka hore waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin maanta Somaliland xabad ma sitay horumar iyo mashaariic iyo waxa tabanaysaan iyo baahiyihiina inay wax ka qabato ayay sidaa kale oo dadweynaha reer Damalaxagare u sheegaya horta idinku saami baa dadka dheertihiin oo wasiirkiiba magaaladiinii ah wixii kale oo tabashaana hoos baynu uga wada hadlaynaa anigoo ku hadlaya afka xukuumadda waxaanu halka ka ballan qaadaynaa Damalaxagare inay noqonayso degmo wasiirka iyo wafdidiisa ayaa deegaanka Damalaxagare uga sii gudbay deegaanka Shimbiraale waxaana sidaasi si lamid ah halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka qaar ka mid ah waxgaradka haldoorka haweenka iyo sidoo kale odayaasha deegaanka Shimbiraale aad ku soo dhaweynayna wasiirka cadaaladda mudane Mustafa halkan oo ah tuulada Shimbiraale waxaanu leenahay soo dhawaada maanta waxayna tahay markii wasiirkii loo yimi musabixiyo noo joogade fariina isaga qaado wuxuu yiri
وإذا كفلنا يا أنا مصبيح وحنا لك قارسين يا بقول كيف بقول يدعو دبرتي وسيرك يوم تضبط هذا ساسا نسوقينا لكن وحنا لنا annagu dawladda Soomaaliland waanu soo dhaweynaynaa hiiliyo hooba waa la garab taaganahay waanu taageersanahay laakiin waxaanu ka rabnaa xuquuqdii aanu lahayn baanu ka rabnaa Mustafa Maxamuud Cali Bile wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu baahiyaha deegaanka Shimbiraale ay wax ka qaban doonaan xukuumadda uu ka tirsan yahay xad weyn noo ah inaanu maanta magaaladii Shimbiraale annagoo caafimaad qabnaa aanu ku soo noqono oo inoogu dambeysay 2 sano ka hor maalintii halka foodka waa maragma doonto marka laga hadlayo bariga Sanaag mandaqadii ugu codka badnayd ee u codaysay madaxweyne Muuse Biixi ama xisbiga kulmiye waa degmada Shimbiraale jira dartood bay taasi ku dhacday ee niyadayada waa ku haynay Shimbiraale marna nagama maqnayn akalo xusud midan mar walba waxa la hayo adduun baynu joognaa iyo baahida waxa fara badan baahida laakiin waxaanu ballan qaadaynaa wixii aanu ka qaban karo baahiyaha faraha badan inaanu ka qabanayno ballanna waa ka qaadaynaa Shimbiraalena waa u abaal celinaynaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag معروف construction and real estate معروف construction baa dhismaha kala duwan ee bilan wanaag kugu kaafido kreenta guryaha u wacan معروف construction waxay xarunta weyn ku leedahay magaalada Ceergaabo waxaadna ka helaysaa dhisidda dhismayaasha fooqyada bangalooyinka guryaha kooban iyo dhismayaasha ganacsiga nooc kasta yihiin waxayna kugu nashqadaynaysaa kuguna dhisaysaa hababkii ugu dambeeyay ee casriga معروف construction and real estate waxaad sidoo kale ka helaysaa kreenta guryaha goobaha ganacsiga iyo wixii sidoo kale waxaad halkaasi ka helaysaa injineer qaabilsan la talinta dhismayaasha aan idin tilmaamay معروف construction and real estate waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee Aflax supermarket ama ka soo horjeedka maqaaxida shaxan wixii intaasi dheer ee faahfaahin fadlan kala xiriir lambarada shaashada ka muuqda